waxaa habeenkii xalay ahaa lagu qabtay hoolka shirarka ee jaamacadda Azhar ee magaaladan Qaahira aqoon isweydaarsi ku saabsan dhowrista jiritaanka Soomaaliyeed iyo dhexdhexaadnimada Islaamka taasoo uu soo qaban qaabiyay xarunta horumarinta dhaqanka ee Geeska Afrika. aqoon isweydaarsigan ayaa waxaa ka soo qayb galay safiirka Soomaaliya u fadhiya Masar Danjire Cabdilaahi Xasan Maxamuud, Ustaad Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir oo ah la taliyaha xagga sharciyada ee wasaaradda arrimaha diinta ee dalka Djibouti, iyo waliba Cabdilaahi Nuur Xasan oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo ku nool magaaladan Qaahira. waxaa aqoon isweydaarsigan furay madaxa xarunta horumarinta dhaqanka ee Geeska Afrika Mudane Maxamed Idriis, waxa uu farta ku fiiqay in xaruntani dhidibada loo aasaasay 26 bishii 3 sanada 2011. sidoo kale Mudane Idriis ayaa sheegay in ujeedada xarunta horumarinta dhaqanka ee Geeska Afrika ay tahay sidii loo xoojin lahaa dhaqanka iyo hal-abuurka Soomaaliyeed. haddaba hadaladiisa ayaa waxaa ka mid ah in la xoojiyo dadka قدراتك موهبة هالأبورك ضدك إسكاله أدون وحاول هالأبورلان وحما صعانة مركز ضدك هالأبورك القدرات هذا إن لحوجيه يضدك إبداع عليه مجال ثقافي كأفراد هدفك وتكسني مركز وحاول إلا احترامه ثقافيا ككله أيضا مركز واحد تمييز الجيران هذين تعارضين أما يكون مارين ثقافة منطقة جيسك أفريقيا. sidoo kale waxaa meesha ka hadlay Danjire Cabdilaahi Xasan Maxamuud, safiirka Soomaaliya u fadhiya Masar ahna wakiilka joogtada ah ee dalka Soomaaliya u fadhiya jaamacadda Carabta. waxa uu ku nuuxnuuxsaday in jiritaanka Soomaalinimadu ay asal tahay sida jinsiyadda, dhaqanka, luqadda iyo waliba suugaanta. eriyadiisana waxaa ka mid ah wax fara badan bay ka koobantaa. waxna waa waxyaalo zuula, waxyaalana waa ziyaadaan, waxyaalana wax yar bay iska bedelaan. لكن مدة أن إسبدلينين وهويده كو أي كتاه هو جنسية مركيته. شعب كصوماليين هويدي سوى شعب صوماليين وجسك أفريقيا دجن مساحة وين وسياسيا لك على جوجوستو قار حمارة قاطع قار فرنسيس قاطبة قار من كان ريكينيا ولا عليه نقاطين أيوليه وأنا إسكومد ميرو جوجا قبل ده كل على تي جارسة هي مدة هواس كل على تي walbada uu kala fog meeraha Soomaaliya tanagayla ku dhalatay waa isku mid. dhinaca kale waxa aqoon isweydaarsigaasi si weyn ugu hadlay caalimka weyn ee Soomaaliyeed isla markaasina la taliyaha dhinaca qaanuunka iyo sharciga ee wasaaradda arrimaha diinta ee dalka Djibouti Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir. waxa uu si qoto dheer ugu hadlay dhexdhexaadnimada Islaamka taasoo loogu fadhiyo buu yiri in Soomaalida Islaamku ay u fahamto si sax ah oo dhexdhexaadnimo ah. Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir oo ka hadlayay arrimahaasi ayaa waxa uu yiri sida tan: إلهي بدورتي كتابك القرآن كأنه قرنتها إلهي وحوري وكذلك جعلناكم أمة وسطا. داد إكتدك السياسة ما هالنظام ديني وعريري وضدك كله نسك أنكس عضو إنها يسكو قبضة ما هالنظام له عقلك أنكس عضو هديتو واحد قرتين بالصحة خمر قد حلالين كرتين خنزير قد حلالين كرتين ماها والنظام سكان النص والشورى قالوا ما أنت وحي قاتين ديمقراطية الشورى دي قاتين أول ترى التيقراط بهاينو ودادا حكوميو إن تري. inta uu socday aqoon isweydaarsigaasi ayaa waxaa ka hadlay Cabdilaahi Nuur Xasan oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo ka tirsan jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Masar, iyo Mukhtaar Maxamed Yuusuf oo ka tirsan baarlamaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya. si kastaba ha ahaatee aqoon isweydaarsigan ayaa waxa uu noqonayaa kii ugu horeeyay ee xarunta horumarinta dhaqanka Geeska Afrika ay ku qabato magaaladan Qaahira ee dalka Masar, taasoo la oran karo si weyn bay ugu faa'iideysteen jaaliyadda Soomaaliyeed ee Masar. haddaba waxa arintan lagu tilmaami karaa in ay tahay baaris lagu sameynayo dhaqanka Soomaaliyeed iyo Geeska Afrika iyo dhiirigelin hal-abuurka Soomaaliyeed. arintan ayaa waxa ay imaanaysaa iyadoo ay naadir tahay xarumaha cilmi baarista ee ay sameeyaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay dunida ka joogaan. Xuseen Saxnuuni, Universal TV, Qaahira.